kamida madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu is-adkeeyo ugu dambayn waa ku qasbanaaday inuu xalano tago weliba la fariisto siyaasiyiinta golaha mustaqbalka Soomaaliya faahfaahin qoto dheer oo arrinta ku saabsan ayaan barnaamijka kugu soo gudbin doonaa kuna iftiimin doonaa taageerayaasha xasan sheekh maalmihii ugu dambeeyay waxay lahaayeen wallaahi bay ka tahay filada Soomaaliya mooyaane wallaahi inaan xalana lagu kulmi karin wallaahi inaan laga yeelayn axmed madoobe iyo dani talow hadday arkaan xasan sheekh oo xalana u sii socda maxayna dhihi doonaan barnaamijka ayaan ku falanqeynayaa kuguna soo gudbin doonaa hadduu alla idmo qayb ka mid ah siyaasiyiinta samata bixinta ayaa ka guuray muqdisho inteeda kale xayndaabka xalana galay mataqaanaa sababta ay uga guureen xaafadihii kale ee muqdisho oo ay xayndaabkaasi ku biireen siyaasiyiinta halkaasi ku jira ragga guuray ee xalana galay oo ka mid ah siyaasiyiinta madasha samata bixinta barnaamijka ayaan kugu soo gudbin doonaa kuna iftiimin doonaa hadduu alla idmo hubaal shirkan hadduu bilowdo qodobo badan madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa ku qasbanaa doonaa inuu dhulka iska dhigo sida dastuurka arrimaha doorashooyinka iyo nidaamka doorasho ee dalka lagu heshiin karo waxaan bal isdul taagi doonaa marba hadduu xasan isdhiibay xasan sheekh maxamuud hadduuba isdhiibay iska dhiibay xalane maxaa laga filan karaa shirka ka furmi doona xayndaabka xalane barnaamijka ayaan kugu soo gudbin doonaa kuna iftiimin doonaa sidoo kale golaha mustaqbalka Soomaaliya waxay kulan la qaateen ururada bulshada rayidka iyaga oo kala hadlay arrimaha siyaasadda iyo aragtida ururada bulshada isfaham wanaagsan iyo isku soo dhawaasho golaha mustaqbalka iyo waliba ururada bulshada rayidkana waan idin sida barnaamijka ayaadna ku daawan doontaan hadduu alla idmo qodobada iyo qodobo kale oo marxaladda dhabta ah ee dalka quseeya ayaan kula wadaagi doonaa ku soo dhawow barnaamijkii oo faahfaahsan iyo anigoo Cabdullaahi Balwaana maalmihii ugu dambeeyay dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya waxay bilowday been aan waxba ka jirin in bulshada lagu madadaaliyo wasiirka gaashaandhigga ayaa yiri Soomaaliya waxay heshay 3 diyaaradood nooca casriga ah ee loo yaqaano F-16 beentiisay ahayd ugu dambeyn wuxuu ku qasbanaaday inuu raaligelin ka bixiyo gaadiid ay leedahay dowladda Turkiga ayay mar kale dowladdu sheegatay oo ay tiri ciidamada xoogga dalka Soomaaliya loo keenay waa been kale maxaa kalifaya dowladdu inay been wax ku raadiso marka iyadoo la heli karo run iyadoo xaqiiqda la heli karo sabab diyaarada aynan lahayn iyo dabaabaad aynan dowladdu lahayn maxaa soo kordhaya haddaad tiraahdo annagaa iskale dadku waxay isweydiinayaan F-16 aan haystaa al-shabaabna balcadow haystaa isma qabanayso muqdisho nawaaxigeeda shabaabaa taagan F-16 aana diyaarad ahaan ayaa ii baakiman haddaad tiraahdo qofka kuwaad oo kula yaabaya waa qofka ku daawanaya taangiyaal bay dowladdu heshay shabaabna waxay joogaan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose bal kaala iswaafaji masaajid cali guduud iyo aadaya baa laguma noqon karo dabaabaadna waan helnay dabaabaadka dagaalka ayaan haysanaa aadaya baalna kuma noqon karo masaajid cali guduudna ma tegi karo maalmahan beentii dowladda waxay noqotay qaab xataa caadiyan aqliga aynan gelin allo sahla qurax madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu is-adkeeyo ugu dambeyn wuxuu aqbalay inuu xalana tago berrito ayuu tegi doonaa berri ayuu tegi doonaa 17 bisha 2026 hoteelkii gogosho ay tiilay ee la yiri xasanow filada ka soo baxay imaw halkan berriyuu tagaya away taageerayaashii xasan sheekh oo maalmaha nagu celcelinayo wallaahi billaahi shirka meel aan filla Soomaaliya ahayn laguma qabanayo maxay dhihi doonaan ilaa berri xasan sheekh hadduu alla idmo waa berri 17 bisha 2 talaado wuxuu u socdaa xayndaabka xalanee maxaa xala waxa uu la fariisan doonaa madaxda golaha mustaqbalka ee maxaa xal ah waxay kala helaan ayaan kadib arki doonaa laakiin xasan inuu inta filada ka soo baxo xalana tago waa ballantii aynu lahayn waaye waa ballantaad iga sugayseen waana ballantii aynu ku loolamaynay kuwa taageersan xasan sheekh oo naga dhaadhicinayay inaysan suurtagal ahayn in lagu kulmo xalane berri laakiin markay xasan sheekh xalana ku arkaan jawaabta ay bixi doonaan halkanaan u fadhiyaa wuxuu is adkeeyo xasan sheekh waa isdhiibay wuxuu yiraahdo xalana ma tagayo
بريت واتجيا وحكلا كلمه سياسيين تقولها مستقبلك هل كان أيات كلا صعود دوتا إن شاء الله قضبض الله يسوى يستوى الشركة آيها صومالية وتستور إيا مارين تدور الشويك مدحوين حسن شيخ والله بدا قضبه ugu weyn qodob kamida wali golaha shacabka ayaa jiidjiidaya laakiin golaha mustaqbalka waxa uu markaan madaxweynuhu lacag ha ku bixiyo golaha baarlamaanka ha marsiisto ugu dambeyn waa laga kansalaya qodobka dastuurka waa qodob u baahan in laga heshiiyo haddii laga heshiiyo la wada aqbalo alxamdulilah haddaan laga heshiin cid dastuurkii dalka jeebka ku rida karta ma jirto intaasna waa noo muhiim doorashooyinka waa lafdhabar dalkana doorasho wada ogola inay ka dhacdo dawadiisa ku jirta madaxweyne xasan sheekh dooqiisa annaga doorasho noo noqon mayso waa la tartamayaa hadduu mar saddexaad madaxweyne noqdo waa calafkiisa haddii uu noqon waayana dee shalay sida aynu u erinay ayaan u erinaynaa madaxweyne iskeen masraxa siyaasadda doorasho kalkiisha lagu qaato ma shaqaynayso 2026 waxaa la rabaa marka in laga hadlo waa dastuurka doorashooyinka qaabka guddiga doorashada loo dhisay iyo weliba doorashada ka qabsoomi karta Soomaaliya 2026 15 May la iska rabaa madaxweyne dhulka Soomaaliya ma ku xoreysay muwaadiniinta Soomaaliyeed ma ku diiwaan gashay ma haysataa fursad golo deegaan iyo golo baarlamaan qof iyo codad ma tigi kartaa deegaanada Soomaalida oo dhan mase waxaa rabtaa inaad ku qabato oo keliya magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kooban ee go'doonka ah oo ay maamulada ku taageersan ay joogaan sideed ka yeelaysaa madaxda Jubbaland iyo Puntland ma deegaanadaas sidee looga qabanayaa doorasho qaababka ugu macquulsan ayay doorashadu ku habboon tahay kuma habboona anaa iri iyo anaa saas yeelaya iyo anaa qaabkaas ka dhigaya suurtagal maaha waa la is arkayaa haddii la heshiiyo alxamdulilah haddii la isfahmi waayana dee waxa weeye dalkan badbaado helaya xoogaga wadaniyiinta Soomaaliyeed waa heegan mar kastana dalkan dad baa badbaadiya ilaahay baa badbaadada iskale dadkaasi ayaa taagan oo mar walbaba kaalintooda qaadanaya insha Allah ururada bulshada rayidka la fariisteen golaha mustaqbalka Soomaaliya afkaartoodii baa la dhageystay ururada bulshada rayidka fikir bay keeneen madaxdii golaha mustaqbalkana waxay soo bandhigeen iyada aragtida ay wataan runtii ururada bulshada rayidka way ku qanceen maxaa yeelay golaha mustaqbalka waxay rabaan wada ogol aan heshiino ceeb maaha aan mustaqbalkeena ka heshiino ceeb maaha ee waxa ceeba qofka kule kuu joojin maayo waxaa qaldan qofka kule kuu joojin maayo hadda ka hor xasan sheekh oo mucaarada wuxuu yiri kuma raba ay leedahay kuma rabo haddaad tiraahdo qofku wuxuu ku leeyahay adigana kuma rabo bartii uu shalay asaga sheegayay ayay maanta taagan tahay madaxweyne kuma raba ay leedahay aan wada tashano ceeb maaha aan wada tashano oo aan ka tashano aayaha ummadda ceeb maaha berri waa la is arkayaa xasan sheekoo socdana xalan uu tegi doonaa inuu xalano tago kana soo baxo filla Soomaaliya qodob ballan ah oo meel noo tiilay ayay ahayd ogow marka xilli habeena ayuu barnaamijkan ka baxayaa facebookiga pageka balwaan show berrina waa 17 bisha labaad waxaad arki doontaan isagoo xerada xalano sii socda hadday ahaan lahayd qadada ama cashada halkaasaa la wada fariisanayaa wixii la kala helo waa waxaan wada doonayn insha Allah qayb ka mid ah siyaasiyiinta samata bixinta ayaa ka guuray muqdisho inteeda kale waxayna u guureen xaydaabka aad loo ilaaliyo ee xalana ragga guuray waa ra'iisul wasaare Khayre xaydaabka xalana u degay madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa intiisa badan xaydaabka xalana joogi doona labadaasi mas'uul waxay xalana joogi doonaan ilaa ay xaaladdu dhinac u dhacayso ilaa arrintu ay dhinac